السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان والدين تقاليق waxaan jeclaan lahaa inaan waani yar idin la wadaago khaasatan waalidiinta ilmahooda keenayo Mall of America. fadlan haddii aad maamad tihid oo ilmahaaga aad keenaysid, haddii laba ay ka badan yihiin, waxaad hor usoo wadaa aabbaha. waa zaa'id ayuu muhiim u yahay. haddii aabbihii uusan joogin mise arrimo kale oo iska jirto, fadlan waxaa soo wadaa abtiga ama walaalahaaga. maxaa yeelay moolkan waa moolka ugu mashquulsan oo khaasatan wadanka USA. moolka labaad oo waxaa waa North America. waxaa kaliyo ka weyn waa moolka Canada ku yaala oo la dhaho Edmonton, Western Edmonton ka weyn. fadlan moolkan waxaa laga yaabaa inuu isbuucii 200,000 qof uu soo booqdo. saas darteeda waana moolka ugu badan oo ilmaha laga xado waaye. fadlan hor waxaa usoo wadaa qof inuu kula socdo. maxaa yeelay waxay u baahan tahay ilmihii si ay u qaataan waqti fiican oo ay u raacaan raidayaasha ama qalabaha kala duwan oo meesha yaalo. waxay u baahan yihiin qof caawiyo. sidaas darteeda fadlan ha imaanin haddii aadan caawinaad haysanin. midda labaad waa kabaha. fadlan meeshaan waa meel loogu talagalaa cayaar, ma aha aroos la aadayo. sidaas darteeda waxaad soo xirataa kabo aad iyo aad oo u fudud ama sportiska ama tennis shoes waxay ahaataba. waxaan arkay gabdho kaba la-aan socdaan oo kaba kor u sareyso qaatay waxyar ka bacdi daaleen oo ilmihii ayaga isku jiitamayo. saas darteed iska siibeen oo dacis la-aan socdaan kaba la-aan socdaan arkay. fadlan waxaa soo qaadataa kaba ku habboon goobta. munaasabad walbo dhar ayaa loo gashtaa iyo kaba ku habboon. dharka xataa dhar inay ahaadaan dhar oo fudud oo ilmaha hadaad oo aabba tihid dharka ilmaha aad la gaaraysid oo wiilashii aad ka daba qabsamaysid. maxaa yeelay wiilashu way fudud yihiin oo goobta goob cayaar waaye, maaha goob aroos maaha mise xaflad maaha. inaad soo xiratid kaba iyo dhar ku habboon munaasabadda. midda kalena aan arkay waxaa waayey inaad usoo qaadid ilmihii snacks ama cunto yaroo fudud oo caafimaad leh. maxaa yeelay ilmaha haddaad eegidid meeshaan badanaa waxaa yaalaan cuntooyin pops ama soda sidii loo yaqaana yaalaan. haddaad siisid ilmihii energy-ga way kasii darayaan oo ilmihii hyper ay noqonayaan oo ilmihii qabadkooda adkaanayo. saas darteeda waxaa usoo shiidaa cabitaanada oo fruudyada oo organiga usoo shiid si ilmihii iyo adigii isku fahantaan oona ilmo oo ay noqdaan aysan noqonin ilmo oo hyper aysan noqonin. midda kalena dee meeshaan goobtan goob ganacsi ah. waxaa laga yaabaa inaad iska Soomaaliya iska nabab raqiis. aniga xitaa hadda maanta sidaas ayaan suubiyey oo ilmahayga markaan meesha keenay cuntadii xaafaddaa soo qaatay. ceeb ma aha, cunto caafimaadaan soo qaatay. saas darteeda lacagna way ku save garaynaysaa. lacag sadaa waxaa ku sadaqaysan kartaa dadka masaakiinta oo wadankii jooga. abaar iyo abaar ayaa jiro. saas darteeda lacaga badan ayaad lacagtaas sadaqa ayay ku noqonaysaa oo ajiraad ka helaysaa. midda kale oo aan arkay waxaa waayey in xilliga ugu muhiimsan ha imaanina xilliga galbihii. haddaad ilmo wadatid sidaan soo sheegay waxaa imaadaa xilligii subaxdii. maxaa yeelay lacagta aad dhiibtid waana subaxdii dad badanna ma joogaan oo jaam ma aha meesha. ilmihiina dee fankay qaadanayaan subaxdii 10 haddaa imaadid 2 markii la gaaraba waa ka bixaysaa. anaga saasaa maanta suubinay. waxaan kugu talinayaa inaad subaxdii imaadid. maxaa yeelay galbihii waa dad badanaa meesha isku imaanayo. ilmihiina dee waqti fan ma qaadanayaan. midda kale oo ugu muhiimsanna waa haddaad ilmo dhalinyaro aad wadatid subaxdii kugu fiican. maxaa yeelay galbihii ilmooyin badanaa jiraan oo ilmaheena ka mid ah oo khas iyo adduun wadaan. si aad ilmahaaga dee kuwaas aga badbaadisid waqti hore iska keen ilmahaaga si aynan dhibaatadaas iyo ilmahan kale aysan ku daysan ilmahaaga.
ilmahaas kale baa ilmaheena waaye laakiin waxaa mas-uul lagaa saaray ilmahaaga ayaa aakhiro lagu weydiinayaa. waxaan rajeynayaa ciid mubaarak ayaan ku rajeynayaa. halahanna waa waxaan meesha kusoo arkay maanta iyo waanadeyda. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.